Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada shabakada Kobciya Media iyo Ustaad Injineer Xasan Maxamed Farqan. Waxaanu kusoo jirnay maalmahan Microsoft Excel cashirkii shanaad. Maanta waxaan diyaarsanay database-ka yar, kadibna waxaan rabnaa inaanu aragno wax loo yaqaano page setup sida loo sameeyo, sida page-ka loo qurxiyo, loo hagaajiyo, kadibna printing loogu sameeyo. Page layout baa tagaysaa, kadibna margin ayaa kasi tagaysaa, kadib waxaa kasi tagaysaa customize. Halka ugu horeysa waxaad ka dooranaysaa page-ka qaabka uu istaagayo. Portrait waa taagni, landscape-na waa chief, marka midun baa u deysanaysaa. Margin-kaas inta badan waxba lagama qabto. Haddii aad rabtid size-keena wax ka bedesho top iyo bottom iyo wax loo yaqaano right iyo left wax ka bedelaysaa. Halkan kaliya waxaad ku qoranaysaa header-kii. Header waxaan ku qornay liiska ardayda dugsiga sare ee bari secondary. Footer-na waxaan ku qornay qoraalkaas ku qornay. Sheet marka si aynu u helno wax loo yaqaano grade line. Hadda markaan fiirino grade line ma laha, warqadu saas ay u caddaa. Marka si jeexjeexi uu u yeesho waxaad marka aad tig saaraysaa insha Allah. Ku noqdo margin customize, then sheets markaa joogtid waxaad tig saaraysaa grade lines iyo waxa loo yaqaano row and column heading. Then horta saasa tig u saaraysaa, kadibna arrinta print preview balitus sidaas ayuu markaa noqonaysaa sida qurux badan oo aad ku daabacaysid. Print baa dhehaysaa markaa daabacaysid. Intaada daabicin halkan waxaad ka dooranaysaa qaabka aad u daabacaysid. Haddaad print page daabacaysid, page-ka sheegaysaa ilaa halka page 1 ilaa page wax loo yaqaano 4 oo kale. Ama waxaad kala dooranaysaa print one side iyo both side, hal dhinac, laba dhinac, waxyaabahas kala dooran, kadibna print baa ku dhufanaysaa. Sidaas ayuu waxa imaanaya inuu kuugu daabacmo dukumentigii aad rabtay. Intaa waxa ku eg cashirkii shanaad, la soo cashirka lixaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.